سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن ونكسن داوديال قضبضاد ورركنا كمغلي دونتان وحاكم ذا حالة على قبلك التقريقا يا عركا اسكسي شرارتي مركا عدمدا دولدا إثيوبيا اي مغالوين مهمة مركا لكا ورقان حقاقا TPLF دقال فراها لقا قبتين ودحمر يا عدمدا دولدا يا حقاقا TPLF iyadoo dagaalku cirkaas ku sii shareeray ciidamada dawladda iyo saaxiibadoodna ay deegaano hor la isku sii fidinayaan iyadoo dagaalku ku sii baahaya guud ahaan gobolka Tigreega ciidamada TPLF ayaa qaadaya weeraro rogaal celis ah oo kaga hortagayaan ciidamada huwanta si ayna gudaha ugu soo galin caasimadda gobolka Tigreega oo difaaci intiisa badan ay soo jabsadeen ciidamada huwanta dagaalkuna uu ku sii dirkayo deegaano sidoo kale ciidamada dalka Eritrea ayaa wada duulaan aad u ballaaran oo guud ahaan ay doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda gobolka Tigreega ee magaalada Mekele ayadoo ciidamada Eritreaanku ay taangada aad ka u culus ay gudaha uga soo galeen gobolka Tigreega goobaha difaacana ay ka soo tallaabeen dagaal culusna uu dhaxmaray ayaga dagaalyahanada TPLF oo dhalinyaro aad u tiro badan ka horgeynaya ciidamada huwanta dagaalkuna uu yahay dagaal aad u culus ay xogaga Eritrea iyo ciidanka TPLFna ay sula tageen faraha dagaalkuna uu yahay mid faraha lagaga gubtay khasaarihii abid ugu cusla uu ka dhashay waa dagaalka hadda ka soconaya gudaha gobolka Tigreega oo gabi ahaanba loo maaran layahay dagaalkuna uu deegaano hor la ku sii fidayo dhalinyarada deegaanka Axmarada ayaa si weyn qayb libaax leh uga qaadanaysa dagaalka ka soconaya xuduudda deegaanka Axmarada iyo Tigreega ay wadaagaan iyadoo kumanaan maleeshiyada ay iska qorayaan xeryaha ciidamada booliska gaarka ee deegaanka Axmarada si ay qayb uga qaataan dagaalka lagu doonayo guud ahaan bay lagu qabsado gobolka Tigreega maleeshiyada aad u tiro badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Axmarada ayaa si weyn ugu sii qulqulaya xuduudda gobolka Tigreega ayagoo doonaya inay gaaraan goobaha ay colaadda culus ka taagan tahay ama guud ahaan gobolka Tigreega markale ay gacanta ku dhigaan si dagaalka iyo dadaalka ay dawladdu ku bixinayso inay guud ahaan caasimadda gobolka Tigreega la wareegto inay qayb libaax la ka qaataan ayagoo dagaalka iyo jiida hore colaadaha si weyn ugu sii qulqulaya dawladda Itoobiya ayaa ogolaatay inay ka qayb qaadato wada hadalka ka dhacaya dalka South Africa ee la filayo maalinimada Isniinta taariikhduna ay ku beegan tahay 24 bishan inuu ku guda jiro inuu dalka South Africa ka furmo xogaga TPLF iyo dawladda Itoobiya la ishor keenayo taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Ridwan ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ay u diyaarsan tahay inay ka qayb qaadato wada hadalladaasi ama gabi ahaanba lagu soo afjarayo colaadda gobolka Tigreega iyadoo sida la wada ogsoon yahay dagaalku ku sii fidayo deegaano hor leh dawladda Itoobiya guulo waaweyn ay ka sheeganaysa dagaalkaasi gaga oo walaalafay xoreynta shacabka Oromiya ayaa sheegay inay jabiyeen ciidamada dawladda weeraro xooggan ay ku qaadeen fadhiismaha ciidamada dawladda ay ku raayeen gobolka Walega oo walaalafay ayaa sheegtay dagaal saacadii la soo dhaafay dhaxmaray ayaga ciidamada dawladda inay jab aad u culus gaarsiiyeen ciidamada dawladda dagaalkuna uu ka sii soconaya deegaano hor leh dagaalyahanaduna ay gulihii abid ugu ballaarnaa ay ka gaadhaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada dawladda Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa gaaray Beledweyne isagoo ka soo kicitay magaalada Goday caasimadda labaad ee dawlad deegaanka Soomaalida ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa dawlad deegaanka Soomaalida socdaal dheer uu ka soo bilaabay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida ku gaaray magaalada Goday kadibna uga sii kicitay magaalada Beledweyne oo goobihi ay sida weyn uga urteen dagaalada dib u xoreynta koonfurta Soomaaliya la rabo guud ahaan in argagixisada laga saaro militariga Soomaaliya ayaa wali guulo ballaaran ka sii sheeganaya dagaalada ay kula jiraan xoogga argagixisada iyadoo shabeellaha dhexe maanta ay ciidamadu deegaano aad u tiro badan ay kala wareegeen argagixisada walina dagaalo xooggan ay deegaanadaasi ka soconayaan iyadoo guud ahaan dalka Soomaaliya laga dareemayo ololaha looga xoreynayo xoogga argagixisada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna taariikhdu waxay ku beegan tahay 20 bisha 10aad 2022
haddaynu u gudagalno wararkeeni oo faahfaahsan dagaal faraha laga gubtay oo khasaarihiisa wata ayaa ka dhacaya bartamaha gobolka Tigrayga oo isku wajahayaan militariga Itoobiya iyo saaxiibadiisa oo isku dhinaca iyo xogaga TPLF oo mar kale bilaabay weerar rogaal celis oo guud ahaanba ku doonayaan inay ciidamada gudaha u soo galay gobolka Tigrayga una midna ka bixin waa sida lagu qoray afka xogaga TPLF ayaa sheegay ciidamadooda inay qaadayaan weeraro xooggan ayagoo dagaal iska caabin oo aad u ballaaran kala kulmaya ciidamada huwanta dagaal aad u culus ay ka dhacayaan inta u dhaxaysa Shire iyo Axum oo ah magaalo istiraatiiji ah oo ciidamada dawladdu ay gabi ahaanba isku hareerayeen hase yeeshee dagaalyahanada TPLF ayaa qaadaya weeraro aad u xooggan oo sheegeen in jab aad u culus ku gaarsiiyeen ciidamada huwanta ee dawladda federaalka Itoobiya sidoo kale ciidamada Eritrea ayaa bilaabay duulaan duqeyb iyo ciidamada lugta oo si weyn ugu soo qulqulaya gobolka Tigrayga ayagoo sita taangiyada aadka u culus ciidamada Eritrea ayaa ka go'an tahay guud ahaan inay gobolka Tigrayga qaabtaan ama dawladda Itoobiya ay soo gacan galiyaan magaalada Mekelle oo yahay ujeedka koobaad ee ciidamada huwanta ayadoo ciidamada Eritreanku ay bilaabeen dardar aad u ballaaran oo dagaalka ka soconaya gobolka Tigrayga maleeshiyaadka Axmarada ayaa si weyn ugu soo qulqulaya gobolka Tigrayga ayagoo iska diiwaan gelinaya xeryaha ciidamada gaarka ee deegaanka Axmarada si ay dagaalka uga qayb qaataan guud ahaan la doonayo in gobolka Tigrayga gacanta lagu dhigo sidoo kale dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay ka qayb galayso wada hadallada la filayo maalinimada Isniinta oo taariikhdu ku beegan tahay 24 bishan inuu ku guda jiro inuu dalka South Africa ka furmay inay ka qayb galayso ayna nabadda dalka Itoobiya ay dawladdu markasta geed gaaban iyo geed dheer boo fulayso xogaga xoreynta shacabka Oromiya ee OLF ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaareen dagaalka ay kula jiraan militariga dalka Itoobiya iyagoo sheegay dagaalo ka dhacay gobolka Walega inay guulo waaweyn ka gaareen jab aad u culusna ay gaarsiiyeen ciidamada dawladda dagaalkuna wali deegaanadaas ka sii soconayo qodobreedkan ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Beledweyne oo ah umuucda ay sida weyn uga qaracday colaadda lagu doonayo xogaga argagixisada gabi ahaanba lagaga sifeeyay dalka Soomaaliya iyadoo ra'iisul wasaaruhu ka soo kaxeeyay magaalada Goday ee caasimadda labaad ee dowlad deegaanka Soomaalida halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay uu dowlad deegaanka dhexdiisa ku bixinayo socdaal safara militariga Soomaaliya ayaa wali si wada hawlgallada xooggan uu ku doonayo inuu xogaga argagixisada kaga saaro dalka Soomaaliya ay shabeellaha dhexe deegaano aad u tiro badan ka xoreeyeen argagixisada walina ay sii wadaan dagaal aad u ballaaran oo ku doonayaan inay guud ahaanba argagixisada kaga saaraan dalka Soomaaliya iyadoo dagaalo culus dhex marayaan argagixisada iyo ciidamada dawladda Soomaaliyana ay wali si wada ololaha aadka u ballaaran tani kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh